بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا هبوني هانتي بالدعوة يا ملك سكون داونستان. لكن هو تلفزيون كمان حبنا رأي تي في استوديو سكوادي من قلادة بورما وركوا حاول يكون ديارة. أنا يقول عبد الناصر على إلا وضبط وركوا قدر كانوا حاكمنا. maamulka gobolka Awdal iyo kan degmada ayaa maanta kula la qaatay madaxda xafiisyada nootooyinka ee magaalada Boorama. wasiirka wasaaradda maaliyadda Somaliland ayaa maanta hortimid golaha baarlamaanka Somaliland iyo halkaasi warbixin looga dhageystay kooxaha mucaaradka ee Afrikada Dhexe ayaa weerar ku qaaday xero ay ku sugnaayeen dad barakacayaal ah oo ka barakacay dagaalkii ka dhacay dalkaasi. Turkiga ciidamada taangiga u dirtay dalka Ciraaq gaar ahaan deegaanada ay degaan Kurdiyiintu. Dawladda kuwaas waxay ahaayeen qodobada warka ugu door corona haatan ku soo dhawaada warkii oo fidsan. maamulka gobolka Awdal iyo kan degmada ayaa kulamo la qaatay madaxda xafiisyada nootooyinka magaalada Boorama. warka baabaantiisa waxay noo haya wariyeen Axmed Diriya Eltre. maamulka gobolka Awdal iyo mas'uuliyiinta dawladda hoose ee degmada Boorama oo uu weheliyo gudoomiyaha maxkamadda gobolka Awdal oo uu weheliyo isku duwaha wasaaradda cadaaladda ee gobolka Awdal ayaa waxay maanta kulan la qaateen shaqaalaha ka shaqeeya xafiisyada gaarka ah ee loogu adeego bulshada kuwaas oo iyagu sameeya sharciyada kala duwan ee adeegyada ay bulshada u qabanayaan sida dhulka kala saaridda iyo sharciyeynta dhulka iyaga oo waqtiyada ay adeegyadan qabanayaan markhaatiyo kala duwan u sameeya. ugu horeyntii waxaa halkaasi ka hadlay wasaaradda cadaaladda ee gobolka Awdal ana uu faahfaahin ka bixiyay kulankani maanta ay iskugu yeedheen shaqaalaha xafiisyada nootooyinka ka howlgala. waxaa inoo farxada inuu inala fadhiyo gudoomiyihii gobolka Awdal ahna madaxweynihii gobolkana gobolka madaxweyne gobol baa tahay uu ku mahadsan yahay gudoomiyaha maamulka gobolku waa madaxdeennii ugu sarreysay gobolka uu ku mahadsan yahay inuu nagala soo qayb galo fadhigan iyo kulankan isaga hortii saaka waxa aan wada qaadanay kulan kale maamulka dawladda hoose madaxda dawladda hoose iyo xafiisyada nootooyinka oo anigoo isku duwiya cadaaladuna aan ka mid ahay waan wada hadalay arrimaha hawla ah iyo wada shaqayn ah ku saabsan oo ka dhaxeeya xafiisyada nootooyinka iyo dawladda hoose ayaanu ka wada hadalay. wada hadalkaasi wuxuu ku dhamaaday isfaham iyo isafkarad wanaagsan iyo in la wada shaqeeyo wixii qaldanna la saxo. sidaa darteed guddi farsamo ayaan ku soo gunaanadnay wada hadalkii in labada dhinac laga saaro oo 6 xubnood ka kooban 3 dawladda hoose iyo 3 nootooyin wixii ay ku soo taliyaan ayay aniga iyo maayarka oo mustabeed u ah iyaga ay noo soo gudbin doonaan annaguna review baan ku samayn doonaa waanu eegi doonaa go'aan baanu ka dhigi doonaa la fuliyo haddii alla yiraahdo. intaas ayaa gudoomiyaha maamulka gobolka ka horeysay saaka imikana waan ku soo dhaweynayaa soo mahadsan gudoomiyaha degmada ayaan gudoomiyaha xigeenka degmada ayaan ku soo dhaweynayaa. maayir ku-xigeenka magaalada Boorama Cumar Jimcaale Ileeye iyo gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax ayaa iyaguna dhankooda ka hadlayna waxay sheegeen inkastoo aan sugaynay in loo yimaado gudoomiyaha maxkamadda hawl shaqo ayuu kulli nooga habsaamay oo iyagana aan iska soo galno maxkamadda degmada marka ay dhaxalka qaybinayaan dhulkii in dawladda hoosana ay la ogaato qof walba plot numberkii oo helay labada walaalaha dhow toolay hal jeeg isku qabsanaya markaas sidii loo kala saayay lahaaba taasi naga fudaydinaysa aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaan ka soo qaybgalayaasha waxaan ku soo wareejinayaa gudoomiyaha gobolka. Assalaamu calaykum. waan ku kala duwanahay halka dawladda hoose waxaa jira imika dhaxalkii oo kale ilaa 4 kiis oo 3 gaadhay daba socdaa wax kale iyo daba socdaa waa kiisas ay murgiyeen
ugu horeyn nootaayoyin nin baa odhanaya jagaan waraaqabo oo haysan waxaan ka iibinayaa jagadaydaasan halkaa ku leeyahay isagoo dawlad hoose soo marin oo meel kale soo marin ayuu nootaayo sharci tagay nootaayadii sharciga ahayd maxkamadda wakiil ka tahay liisan bay haysataa waxay qortaa waa sharci haddana waxaanay sharci ku noqonaynin markay iyadi buriso de wixii aad soo qorteen oo dhamina dhammaan waxaa kale jira tii maaliyadda oo lunsiga hantidii ummaddu lahayd number 1 ay ka noqoteen waxaan haynaa gurigii kontonka kun la kala siisto weli kiiskiisu maxkamadda ku jiro $2,000 baa ku soo qorteen $2,000 ayaa ku soo qorteen taasina FIA akhira mideeda ka halaysa runtii maaha guri la siistay 150,000 ama jaga la kala siistay dhul 200 oo kun la kala siistay baa jira magaalada waxa lagu soo qoro runtii waa markaan ka hadlaya xagga dakhligii dawladda ama dawladdii dhexe dakhligii soo gali lahaana curyaamin badan bay ku hayeen iyo tii hooseba hoose iyagu waa kuwan dee bal wax isla eegayay la go-aan baanu isla qaadanay marka isu duwe aad baan horta uga cabanaynaa kamana cabanayna inaan liisamada ka qaadnaa baanu awood u leenahay aanu lanaanaa lagala noqdo liisamadii hore waa ogeydeen wasiirkii hore qoraalkaa qorateen iyo kuwii aanu qornay inkastoo la bedelay iminka wasiir kale yimi laakiin waxa weeye dee sharcigii lama bedelin macnaana hayga ahato meema markii isugu horreysay inuu isu nimaado waxaan anu idinka filaya rag waaweyn oo weliba mas-uuliyiinina waa tiin meherad baa haysataan inaad meheradiina hagaajisataan aakhiradiina u tulataan dadka kala saaridoodiina aydin sidii sharcigu ahaa aynu marno assalaamu calaykum axmed diriye ciltre raya TV magaalada boorama wasiirka wasaaradda maaliyadda Somaliland ayaa markii ugu horeysay hortimid golaha baarlamaanka Somaliland iyadoo halkaasi warbixino ku saabsan looga dhageystay miisaaniyadda 2016 wargaabaynta waxay noo hayaa wariyayna Cabdisalaam Kiyaakuma kalfaldhigii golaha baarlamaanka Somaliland oo baryahanba ka socday magaalada Hargeysa isla markaana uu hogaaminaya gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Baasha Maxamed Faarax ayaa warbixin maanta waxay ka dhageysteen xildhibaanada golaha ka soo xaadiray wasiirka maaliyadda Somaliland Marwa Samsam Cabdi Aadan ayaa waxay soo hordhigtay miisaaniyad sanadeedka 2016 oo gaaraysa $295 milyan oo doolarka Mareykanka waxayna meesha ka saartay inaysan jirin cashuuro la kordhiyay waxaana hadaladeedii ka mid ahaa waxa sanadkan ay ku salaysan tahay cashuur lama kordhin miisaaniyadda sanadkan waxay ka dabaqaysaa in la sameeyo cashuuraha bariga la xoojiyo iyo in lagu talagalo 5 biil ee idinla yaala ee ah public finance management report reformka public finance management report reformka waxa weeyaan isagana lacaga badan oo aan halkan laakiinse ku cayinay laakiinse ay lagu shaqaynayo ayaa iyagana ku jira oo 5 milyan ay World Bank aan kala saxeexanay imika uu sanadka cusub la soo deynayo iyo 7.2 milyan oo yana ay qolada Ingiriiska dividend la yiraahdaa ay bixinayso marka waxaan jeclahay miisaaniyaddu intaas ay ku fadhidaa markaad eegtaan dhalinyarada waxaanu iyana culays ka saarnay sanadkan in garoomo badan la sameeyo oo garoomadaasi ay uga soo baxaan ay dhalinyaradu u hesho meelo ay ku sameeyaan ay ciyaaraha ku sameeyaan oo dakhli badan ugu jiro waxa kaloo miisaaniyadda sanadka ku muuqata gobolada waxaa laga dhisayaa xarumo wasaarado badan ay ka dhisanayaan oo iyana budgetka ku jirta waxa budgetku uu focus ku yahay in gobolada runtii ay presidency dawladdu ka muuqato runtii oo aanay noqon in sidii marka laga soo warramay aan gobolada qaarkood aanay ama ka cawdaan inaan xafiis haysan ama ay ka cawdaan inaan gaadiid haysan waxa kaloo sanadkan miisaaniyadda ku qorsheynay in qaabka gobolada ay wax u gaaraan mid waxa weeyaan inay gobolada toos wax loo siiyo oo ay waaran loogu diro waxaa jirta qaab kale oo isuduwaha wasaaraddu intuu yimaado uu halkan xarunta dhexe wax ka qaadan jiray xarunta wasaaradaha iyadana tii waanu bedelaynaa qaabka waxaanu ku talagelaynaa in gobolada ay toos u gaaraan wixii loogu talagalay on top of that in 5% gobol walba ay gaaraan waxaanu kaloo sanadkan wadooyinka
iyaguna wadooyinkuna waa ku jiraan in wax laga qabto oo waxaa ku jirta dowladaha hoose marka runtii duuduub ahaan marka aan soo qaado presentationna waanu samayn doonaa oo nagu diyaarnahay wixii su-aal laga weydiinayo wasaarad aanay wax u kordhin ma jirto runtii waxaanu eegnay wax korarkaas maaha mid la iska kordhiyey xeebaha 100 askariya loo qoray iyo tayeyntooda ku jirta waxaanu doonaynaa inaynu in meelaha ummadda wax ku noqonaya wax laga kordhiyo waanu isla garanay qaabka ay wasaarad walba wixii ay soo qoratay 3-4 jeer bay nala fadhiisatay xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa maanta ka hadlay war uu ku sheegay in xukuumaddu buunbuunisay warka faafinta waxa inoo haya wariyahana Cabdisalaam Kiyakuuma booba Yuusuf Ducaale xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaradka ee wadani oo warbaahinta kula hadlay xarunta guud ee xisbigaasi ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa xukuumadda iyo xisbul xaakimka kulmiye ku eedeeyay inay ka dambeeyeen buunbuuninta warar qaar kamid ah warbaahintu ay ka qoreen mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani oo socdaal ku maray magaalada Gabil ee xarunta Gabiley waa war-saxaafadeed ka soo baxay waaxda warfaafinta ee xisbiga wadani hadalhaynta xisbiga wadani ee maalmahani waxay u badnayd barnaamijkii qabyada ahaa sidii loo qabyo tiri lahaa annagoo gudaha iyo dibadba ku baahinay oo xataa xisbiyada mucaaradka gaarsiinay madaxtooyada iyo xarumaha xisbiga kulmiyana hadalhayntoodu maalmahani waxay ahayd in ay ku guuleysteen in ay u xidhaan calanka xisbiga wadani intaa waxa raacayay halkudhagyadii ay dadka lacagta ugu laabeen ee ahaa wadani Gabiley ma iman karo iyo wax la mid ah waxa hubantay inay hawsha galeen oo ay ka dambeeyeen saddexanka isku raranta ah ee aan la mahadin ee xukuumadda xisbiga kulmiye iyo dawladda hoose ee Gabiley dhacaankii waratada laga soo nuugay ayaa qorshayaasha dhagareed lagu maalgelinayay ceebtood maaha ee waa caadadood daliilkeedu wuxuu yahay waxa bariye dhaweyd aynu marag iyo marxaatiba ka nahay xubno xukuumadda ka socday oo wajaale daahaya shamis ka lahaa tago jaale waanu jecelnahay oo waa halkii ayga calanka udub loogu xidhay daliil kalena wuxuu yahay ilaa maantada aynu joogno ma hayno dawlad dhexe mid hoose kulmiye boolis maxkamad iyo cid kale oo arinta ka falcelisa saddexda xisbi meel walba dalka ahba waa ay tagi karaan waa ay ka hadli karaan waa ay iska sharaxi karaan waa xeer iyo xaagaan dalka gobolada iyo degmooyinku uma xidhna xisbiga kulmiye fariimaha caynkan ah madaxtooyada iyo xisbiga kulmiye waxay ku hurinayaan dagaalo sokeeye oo dalka ka bilaabma doorashadana dib loogu rido fariimahan sareysan xajiimaysan ee xanafta leh ee doolarka lagu laabaya waxay horseed u yihiin in dalku kala googo'o oo qoloba meel sheegato sidaasna xisbinimadu ku baabaado xukuumadda iimaanka daran ee miyiga magaalada Muqdisho waxa ku filaa in ay soo bandhigto waxqabadkeedii 7 sanadood ee ay xilka haysay oo ay ku ladho ballanqaad kale waa fursad aanan helin anagu oo ayna dheer yihiin dhaqan xumada iyo dhalan darrada reer Gabiley uma ay dhalan ee waxa baday xukuumaddan abaalka daran ee dhaqanka suuban iyo akhlaaqiyadka diineedba ka aradan ee kiishkii cawaale sheegayay ee aan buuxsamayn sidata kaas oo ilaa London ay dabadiis joogto gaariye miyaan oran durwaaga ciyaaya cabaadku nafooyay cadceed galabeedku godkay cirif joogto dambay ugu ciiri gaariya sida ay anaguna waxaan leenahay cadceed galabeedku godkay cirif joogtay dambay ugu ciirtay way ku ciirto maalintii uu yiri isma soo sharaxayo maalintaas ugu dambeysay dalkan kulmiye iyo xukuumaddan waa fi khabarikaan waa wax bari hore jiray hadda ku soo dhawaada qodobada kale aan inaga hayno wararka caalamka kooxaha mucaaradka Afrikada dhexe ayaa weerar ku qaaday xero ay ku sugnaayeen dad barakacayaal maleeshiyaad ka tirsan kooxda Saleeka ee dalkaasi koonfurta dhexe ayaa weerar ku qaaday xero lagu hayay dad barakacayaal oo ku taala magaalada Nakobo ee bartamaha wadankaasi weerarkan ayaa lagu dilay 8 qof oo rayid ah waxaana sidoo kale dhaawac ka soo gaaray qaar ka mid ah ciidamada UN-ka oo goobahaasi ku sugnaa qaramada midoobay ayaa sheegtay in 4 ka mid ah kooxii weerarkaas soo qaaday la dilay Khamiistii la soo dhaafay weerarkan ayaa ku soo beegmaya kadib booqashadii uu dalkaasi ku tagay baadariga diinta Kaatooliga ee nabadda ugu baaqay kooxaha Kiristaanka iyo Muslimiinta dalkaasi ku dagaalamaya
xiisadda Afrikada dhexe ayaa bilaawantay sanadkii 2013 kadib markii xukuumadda ay inqilaabeen jabhad lagu magacaabo Suleka oo u badan muslimiin. xilligaas ayay isku abaabuleen kooxo Kristaan ah oo loo bixiyay anti-malaka kuwaas oo iyaguna weeraro joogta ku qaada muslimiinta. dowladda Turkiga ayaa ciidan iyo taangiyo u dirtay dalka Ciraaq gaar ahaan deegaanada ay Kurdiyiintu degto. warkaasi waxa inoo haya wariyeen Cabdisalaam Yaquuma. Turkiga ayaa boqolaal ka mid ah ciidamadiisa oo taangiyo ay weheliyaan u tallaabay dhanka dalka Ciraaq gaar ahaan deegaanada ay maamulaan Kurdiyiinta. waxaa la sheegay in halkaasi uu joogaan sidii ay u tababari lahaayeen xoogga Kurdiyiinta ee dagaalka kula jira Daesh, laakiin xukuumadda Baghdad ayaa tallaabadaasi ka carootay waxayna ku tilmaamtay weerar aan la fasixin. Mareykanka dhankiisa waxa uu sheegay in tallaabada ay ciidamada Turkiga kaga gudbeen xuduudda Ciraaq aysan qayb ka ahayn howlgalka uu Mareykanku hogaaminayo. Turkiga waxay xiriir aad u dhow la wadaagaan Kurdiyiinta Ciraaq inkastoo kuwa Suuriya u aragto cadow. Beeraasta qof ayaa ku dhintay howlgallada ciidamada Lubnaan ay ku qaadeen nin dambiile ah. ciidamada militariga dalka Lubnaan ayaa subaxnimadii saaka oo Sabti ahayd weerar ku qaaday guriga deganaan in ay muddo dheer baadi goobayeen kaasi oo isku qarxiyay gurigiisa kadib iska horimaad ka dhacay halkaasi. howlgalkan oo saaka arooryadii hore ka dhacay magaalada Dar Amaar ee waqooyiga Lubnaan ayaa waxaa ku dhintay 3 qof ay ku jirto hooyadii dhashay ninka la raadinayay iyo gabar uu adeero ahaa. ninkan ayaa 2 bambaano ku tuuray ciidamadii doonayay inay qabtaan wuxuuna kadib isku qarxiyay bambaano guriga u tiilay waxaana qaraxaasi ku dhintay hooyadiis oo markaasi guriga ku sugnayd. ninkan isqarxiyay ayaa hore uga qayb qaatay weerar ka dhacay magaalada Tripoli ee waqooyiga Lubnaan. dalka Lubnaan ayaa ku sugayeen kooxo xiriir la leh kooxaha Nasrul ee Al-Qaacida iyo IS oo horaantii bishii November weerar ay ku qaadeen magaalada Beirut ku dilay dad ka badan 4. daawadeentaas waxay ahayn war waxaan dariya dibad bay inaga haynay. warka caawa waxay la socodsiinayay anigoo Cabdinaasir Ali Ilaa tan iyo kulin dambe nabaadiino.